السلام عليكم أصحابي سو هذا عشركم وحواي custom audience iyo retargeting iyo remarketing iyo dib xayeysiin aad sameynaysid oo dib aad tusisid qofkii wax ka iibsaday ama qofkii oo website-kaaga soo booqday oo waxba ka iibsan ama informationkiisa aan ku soo dirin oo dib anta uu noqoto aad xayeysiintaada specifically qofkaas naftigiisa aadana dib u tusisid xayeysiintaada so marka waa Facebook retargeting معناها واي موديل كان أم عشر كان iyo custom audience waa isku mid custom audience macnaha waxa waaye waa dad adiga pocket kugu jiro adiga jeeb kugu jiro oo dad adiga kuu qaasa waayo dadkaasna waxay kuu qaas u yihiin because pixelkii website-kaaga gashatay website-kaaga imaadeen markii website-kaaga imaadeen hadda macnaha dadkaas waa dad adiga kuu qaasa oo la dhaho custom audience custom audience marka ma heli kartid ilaa adiga aad create garaysid ama aadan samaynin custom audience ma heli kartid marka maadaama pixelka aan meesha gashanay waxaan rabaa marka custom audience inaan sii create garaysano early ayadoon la gaarin in qof meesha imaadaba website-kan imaado inaan sii diyaariyaan rabaa marka cashirkan waa very powerful qofkuu sheegaysa male inay important tahay ilaa markay lacag badan kaa khasartaa dareemay marka dadku waxaa arkay inay macnaha intay website-ka iyo pixelka gashtaan kadib xayeysiin sameeyaan 5 maalin 6 maalin week kadib markii xogo 200 300 xayeysiin uga baxdo kadib hadana custom audience ay dib u create gareeyaan is okay wali laakiin waxaa fiican inaad macnaha early create gareysatid oo kala saartid oo dhahdid okay dadka intaas meeshaas soo galeen dadka meeshaan ka yimaadeen dadka xag ku dhufteen kan waxaas inaa u kala saartid marka waxaan u kala saaraynaa aniga anaan waqti kugu dilaynin waqti kaa dhuminaynin custom audience-ku waa dadka macnaha website-keena imaan doono ama website-keena imaanayo so marka dib u abuuridda macaamiisha dib aad xayeysiin u tusisid waa macnaha I don't think that makes any sense laakiin waxaan ka wadaa dib u abuuridda xayeysiinta samayso aad dib u abuuraysid in wax lagaa gato qofa xayeysiin tustay 200 qof marka xayeysiin tusto oo 100 kamid wax ka iibsadaan 100 kale meesh mugu tagaysid xayeysiinna dib u create gareena 100 kale aad tusee oo website-kaaga imaadeen 200 website-kaaga imaadeen aad tusee laakiin waxaa ka saaray dadka wax ka iibsaday oo leads-ka ka saaray macnaha waxaa laga yaabaa in xayeysiintaas aad daaday 100% qiimo dhimis ah kuwana xanaaqa marka ay arkaan because anagana ay kuleeyihiin inay kugu xanaaqan ay soo laabtaan ay refunds ay dhan ku weydiistaan laga yaabaa saaxib lacagta ii soo celiyo buuq iyo maskax xanuun kugu furnaba marka kuwana ka saaray kuwan oo macnaha website-ka imaadeen aad tusay marka last 3 days alla marka amka xalala last 7 days so marka anisa u samaysto waaysan dadkan waa leads ama purchases hada alaab gadid oo kale purchases oo kale ku noqon karaan kuwan macnaha systemku waa same qofka wax ka iibsaday waa purchases oo ku noqonaada adoti laakiin aniga maadaama leads ay tahay obviously aniga waxaan raadinayaa waxa waa qof email ii soo diray number ii soo diray so that would be leads aniga ma fahamtay marka adiga waxa laga yaabaa baba in adiga wax iibinayso laga yaabaa oo Shopify ay haysatid ama WooCommerce ama website wax laga iibsado so adiga marka case-kaagu waa purchases so marka pixelka marka geliso oo pixelkaagu fired noqdo oo macnaha active noqdo ayaa waxaa helaysaa leads-ka iyo purchases-ka waxaas marka hadda aniga waxaan sameynaynaa last 180 days oo leads ma fahamtay 180 maalmood ugu dambeeyay oo leads aan helnay oo audience aan create gareynaa 180 maalmood ugu dambeeyay ilaa hadda wax leads sameysano laakiin waa sii create gareysana macnaha ma fahamtay si macnaha ay audience-kan uu kugu weynaado so haddana waxaan create gareynaa dadka oo website visitors loo yaqaano ama booqdayaasha oo website-ka intay imaadeen iska laabteen last 3 days iyo last 7 days last 14 days iyo last 30 days so marka waxaan u sameynaa waxay tahay because waxaa laga yaabaa in last 7 days dadkii website-ka imaadeen aan rabo inaan wax tuso laakiin saddex maalmood ugu dambeysay aanan rabin inay arkaan kuwana aan rabin inay arkaan kuwana aan rabin inay arkaan oo kuwan bis aan rabo kuwa marka waxaa laga yaabaa inay noqdaan last 7 days last 7 days kaas waxaa laga yaabaa in haddana dhaho ha tusin last 3 days dadkii arkay because ma rabo last 7 days aan rabaa kulli laakiin 7 days 3 days kan ka bixi so that means saddex maalmood ugu dambeysay dadkii website-ka imaadeen wax ma arkayaan laakiin weekii la soo dhaafay wixii saddex maalmood ka goysid wixii ka horreeyay arkayaan macnaha ama waxaa laga yaabaa inaan dhaho last 30 days inaan doorto oo laakiin aan ka reeba bis last 3 days I hope that makes any sense haddana wax ka fahmin
haddaadna wax ka fahmin waxaa laga yaabaa inaad fahamtid cashirka inuu marka aan samaynayno oo macnaha aan create garaynayno audience-ka laakiin waxaan rabaa bis inaan sii sharaxo intaan create garaynin marka audience-kaasu waa dadka website-kaaga imaadeen dadka website-kaaga imaadeen waxay u kala baxayaan dad website-kaaga tagay iyo dad wax kaa iibsaday so dadkiyaa marka kala saaraynaa waxaan u kala saaraynaa marka kuwa wax iibsadana waa gaaran u create garaynaa kuwa website-ka imaadana durationka ama maalmaha ay imaadeen inta u dhexaysana dib kala gaar aan u create garaynaa si macnaha aan midkaan rabna aan xaysiinta u create garayno midkaan rabna aan u target garayno ilaa waxa aan samayn doonno waxay tahay retargeting dad hore website-kan u imaaday waa dadka waxa aan retargeting ku samaynayno ama xaysiinta u create garaynayno marka ma rabin inuu 5 daqiiqo ka bata modulka cashirkan marka cashirka dambe waxa waaye inaan create garayno custom audience and insha Allah ta'ala custom audience da create garayno cashirada ku xigi doona inay noqon doonaan how to create ads iyo wixii dhan oo iskugu xigay oo macmacaankii meesha ka bilaabanayo marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh